بسم الله الرحمن الرحيم أدبر سلام يا أمل وبتشوكسان أولئك المبارك هادي أو أريد كل وذاك شري برامج الدورة أي كمديهين برامج كني فكرة بوك إياه ويديني والعلين إن حلقة دينا ما أنت إن وحن جعلها إنه سوق بيو برامج كني ويدين إياه والعلين إن وحن شري ويديمو رنتي عادو ترى بدنا وعنك صح ولا لا سيديتن ويديمود oo aan ka wada gaari kari lahay inaan idin la wadaago oo ka war celiyo intii taagteeda ah laakiin waxaan isku diyay insha Allah qayb badan oo kamid ah inaan barnaamij live ah oo Facebook ah soo gali doono inaan idin kula wadaago ama Instagram hadba kii fududaada hadii la yiraahdo maanta waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo weydiin kamid ah weydiimaha ugu cudoon runtii weydiimaha la soo weydiiyay weydiintan waxay leedahay mar walba aan isku dayo inaan nolosheeda wax ka bedelo ima fududa oo waxaan arkayaa waxaan jeclahay nolosheeda inaan wax ka bedelo laakiin wax isbedela oo imanaya ma jiraan waana dhaqaaqi la ah maxaa tala ah oo aad isiinaysaa runtii waan horta ku hambalyeynaya dadka inta ku baraarugsan inay isbedel u baahan yihiin ama noloshooda ay horumar u baahan tahay inta ku baraarugsan ay xal u raadinaya aad u yar marka aad baan horta kugu hambalyeynaya qofkii su'aasha ay soo weydiiyay idinkana intiina runtii muuqaalkan daawanaysa kulay waxaan rajeynayaa inaad isbedel nololeed aad doonaysaan dhammaantiin weyn doonaynaa waxa weeye yani qofka maanta aan ahay haddaan ku qanco waxa weeye halka uma dhaafayo ma gaadhayo qofka aan doonayo mubaaraga aan doonayo birayna noqdo waa inaan si joogto ah aan nolosheeda aan u bedelayo aan uga bedelayo inaan noloshaada hore u socon waxaa sababi karaya 5 arrimood ta ugu horeysa waxa weeye baqdin inaad ka baqaysid inaad comfort zone ka baxdo horey barnaamijyo aan halkan idin kula wadaagay waan kaga hadlay comfort zone qofku inuu ka baqo inuu ka baxo sideedaba nolosha waxaan u baranay oo inoo raaxo badan daairada ama goobada aynu ku jirno goobada aynu ku jirno waxa ina keenay waa wixii hore aynu sameyn jirnay wax walba aynu doonayno nolosha inaynu gaadhina waxay xagga kale ka jirtaa goobada aynu ku jirno aynu ku raaxaysanayno aynu la qabsanay hadii aad doonayso marka inaad noloshaada wax ka bedesho waa inaad comfort zone ka baxdo waa in wax ku dhiba oo aadan dareemaynin yani raaxo aadan ku dareemaynin inaad samayso maalin walba inaad samayso dabciyahaana bani aadamku waxa naftoodu ay dhibsanayso san jeclayn way adag tahay inay sameeyaan yani waxyaabihi aad u baratay aad jeclayd ayaad ka baxaysaa meel cilay kugu qasbaysa inaad fadhiisato waxaan hore u qaban jirin bay kugu qasbaysa inaad qabato marka comfort zone-kaaga haddii aanad ka bixin noloshaadu isbedeli mayso wuxuun baad ahaanaysaa qofkii aad hore ahayd waxa aad doonaysa inaad noqotona waxay u baahan tahay qof ka duwan qofka maanta aad tahay inaad noqoto marka waa inaad isku daydo aad eegto ma comfort zone-kaaga ku jirtaa hadii jeer waxa aad qabato ma nolol routine oo ku saabsan oo waxaad hore u sameyn jirtay oo waxaad la qabsatayba hadaysan ahayn ama ay tahay ay dhaade waa inaad ka baxdid oo aad samayso wax ka duwan wixii aad hore u sameyn jirtay arinta labaad ee keeni karaysa waxa weeye aan horeyna idin kula wadaagay waa saaxiibo qofku cidda uu 40 cisho la joogo iyagoo kala noqda haddii saaxiibada kugu hareeraysan ay yihiin saaxiibo aanan bartooda dhaafin aan waxba u soo kordhin adna waxa weeye halka u baad fadhiyaysaa iyagu baad la heer ahaanaysaa marka isweydii saaxiibada kugu hareeraysan ma kuwa noloshooda isbedelaysaa ma kuwa ka duwan qofkii ay ahaayeen 2017 ma ka duwan yihiin qofkii ay ahaayeen 2016 2019 marka la gaaro ma ka duwan yihiin qofkii ay ahaayeen maxay 2018 dad hore u socda oo noloshooda wax ku soo kordhinaya oo wax qabad leh hadaad ku xirato noloshaada way horumaraysaa mararka qaarkood adigoona ogeyn bay horumaraysaa noloshaada arinta saddexaad ee keeni karaysa qofku inaan noloshiisa aan horumarin waxa weeye hankiiso yar hankaagu haduu yar yahay oo meel loo ku qanacsan tahay noloshaadu halka bay joogaysaa dib ugu laabo hankaagu miyuu sareeya runtii qodobkii ka horeeya saaxiibada aad bay u saameysaa hanka qofka
haddii aad saaxiibada aad la socotid rag dad iskaga qanacsan meelo sosoke haddii yihiin ama fadhiyada ka sheekeeya ciyaaraha iska daawada facebooka ka commentiya postiya kusoo qora dad noocaas haddii iska yihiin ama meel yar oo nolosha ku qanacsan adiguna si kastood hankaagu u sareeyo xitaa waxa way saameyn bay kugu yeelanayaan hankaagii bay hoos soo dhigayaan marka hankaagu miyuu yar yahay hankaa la isku dhaafay dadkuba haybta guud siman qof waliba hooyo kaliya dhasho waa la soo habay waa kala horeeya haddana heerka nololeed hanku markii uu tilmaamayay Axmed Shawqi wuxuu lahaa hanku shimbiruhu waxay ku duulaan garbahooda aadanuuna wuxuu ku duulaa hankiisa hankaaga hadduu yar yahay adiguna habaaska umaad fadhiyaysa iyo wax lamida arinta afraad ee keeni karaysa inaanay noloshaadu hore u socon oo aanad horumar ku tallaabsan waxa weeye inaad 100% noloshaada aanad mas'uul ka ahayn ilaahay ka soo nolosheena inaga gacanteena ku jirta inaga leeynagu baahay inaynu nashqadayno oo inuu ka dhigno sida aynu doonayno laakiin in badan oo inaga mid ah wax dabraya ee gadaal oo haya waxa weeye inay cid kale ka sugayaan inay noloshooda u bedelaan waxay doonayaan inay iyagu keenaan arintan runtii bias baynu ku nahay oo waxa weeye yaraanteeni markaynu soo koreynay soo ka caaminay intii horta aynu yareen waalidkeeniba mas'uul inaga aha markaynu xogaa soo kornay iskuulka inaga mas'uulka macallimiintiba mas'uul inaga aha iyo bi'adii inagu xeernay iyaga wax kasto inoo muhiim ah nolosheena iyaga dhigi jiray qabo oo samee laakiin markaynu soo weynaano waxa weeye wax walba inaga la inooga baahan yahay nafteena inaynu dirqino nafteena inaynu xakamayno oo inuu ku qasabno inay wax bedesho ama nolosheeda ay horumariso marka noloshaada 100% mas'uul ka noqo runtii dadka aan noloshooda mas'uulka ka ahayn 100% calaamadii leeyahay lagu garto waxa kamid ah complaint joogta ah ciidun bay ku maanta oo dhan way cabanayaan cid bay ku eedeynayaan cidana nolosheeda mas'uulka ahayd inaan waxan gaari kari waayo dalku waa shaqo la'aan qofkeenu shaqeynaya shaqada iga soo caydiyay hooyada yaabay baa ila shaqeyn la arimahaas oo dhan waa excuse adiga hale waxaas oo dhan waa events waa xaalado dhacaya waa dhacdooyin laakiin adiga kugu xiran tahay inaad ka jawaabtid dhacdooyinkaas kugu dhacaya marka mas'uul noloshaada ka noqo excuse-yada faraha badan tabriiraadka faraha badan iska yaree waxa la yiraahdaa qof kasto ay bataan tabriiraadkiisa ama excuse-kiisa ay fara bataan waxa yiraahdaa isbedelkiisa marka waxa laga yaabaa waxaad u horumar laadahayba inay sabab u tahay inaad noloshaada 100% aan mas'uuliyaddeeda qaadin arinta shanaad ee ku soo gabagabeynaya saameyn karaysa inaanay noloshaada horumar aanad ku tallaabsan ama isbedel aad ku arki weydo waxa weeye runtii aadka ugu muhiimka dib waxaan u dhigtay muhiimadda ay leedahay waxa weeye inaanad lahayn hadaf iyo hiral shimbirtii ninkii beeraleyda ah u timi maxay tidhi xag markaas wuxuu ku yidhi xageed u socotaa waxay tidhi garan maayo wuxuu yidhi xagaad ka timi waxay tidhi garan maayo wuxuu yidhi meel walba aado way ku banaan tahay ordo iska soco qofku hadaanu lahayn meel u socdo wax uu hiigsanayo wax uu ku warwarayo mustaqbal ka qurux badan maanta oo u muuqanaya hadaanay jirin oo soo jiidanaya isbedel ma gaariyo ma dhaafayo barta uu taagan yahay maanta waayo qofku waxa hor u wada pull factor-ka wada waxa weeye waa inuu leeyahay maali mustaqbal ka qurux badan maantadan uu joogo waa inuu leeyahay hadaf uu doonayo inuu gaaro uu doonayo inuu xaqiijiyo qofka duwan uu doonayo inuu noqdo qofka maanta uu yahay hadaanu jirin hadaf ama aanad hadaf lahayn runtii way adag tahay inaad horumarto way adag tahay inaad isbedesho waayo isbedelkuba wuxuu ku xidhan yahay inaad noqoto qof ka duwan qofka maanta aad tahay taana waxay u baahan tahay inuu jiro yool iyo hadaf aad baan idinkaga mahad celinayaa daawashada daawateen muuqaalkan inaasan kusoo koobaya intaan barnaamij kale mar kale aan ku kulmi doono aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu